haweenka iyo muhiimadooda maalin kasta waynu ka hadalnaa laakiin maanta waa shaqo ficil ah oo aynu ugu talagalnay inay haweenkeena taageerto oo ay wax tarto run ahaantii halkan Cabdiqani Xarar baa wuxuu ka yiri dumarka ayaa lacag celinta bangiyada ugu fiican mashruuca haweenka lacag in haween la deymiyo si gaar ah loo deymiyo waxa ay soo bilaabantay 1976 ninkii Maxamed Yoonis loo oran jiray ee caanka ahaa ayaa bilaabay waliba waxa uu ka bilaabay meelaha reer miyiga ah markuu arkay dumarku sidee lacagta u soo celinayaan iyo lacagtan yar ee uu siinayaa impactiga ay yeelayso ayaa 1983 wuxuu aasaasay Grayman Bank bangigii loo oran jiray buuggii caanka ahaana waa uu qoray ee uu microfinance-ka kaga warramayay markii dambe Nobel Prize-ka uu ku qaatay arimaha microfinance-ka la xidhiidha microfinance-ku iyadoo sideedaba aad iyo aad muhiim u ah laakiin waxyaabaha ay wax weyn ka tarto waxa kamid ah inay faqriga la dagaalanto inay kamid ahaanshiyaha dhaqaalaha waxa la yiraahdaa financial inclusion-ka ay runtii wax weyn ku tarto empowerment-ka iyo in dadka la awoodeeyo inay wax weyn ku tarto laakiin kaliya aan ku koobnayn haweenka laakiin haddana ay koriinkii dhaqaalahana wax weyn ku tarto markaynu haweenkeena maal gelinayno oo lacag deyminayno dhaqaalihii baynu korinaynaa bulshadii baynu kor u qaadaynaa waxa kale oo iyadana daraasaduhu xaqiijiyeen haddii jeebadaha haweenka lacagta ku jirta ay badan tahay waxa la kordha oo direct correlation u kala dhaxeeya investment education kala geliyo hooyadu markay lacag soo gasho ilmaha fiigay ka bixin iskuulkay geyn waxbay u tari inta uu ninku laga yaabo inuu qaadka iyo hawlo kale iyo maxaan ku raahdaa uu ku isticmaalayo ku cunayo marka runtii we invest aad iyo aad baan u bogaadinaynaa ugu mahadnaqaynaa insha Allah dawladahaadna position-keena madaxweynaha halkan ka oran doona laakiin si guud inaan idin garab taaganahay oo nagu xisaabtantaan hadii Ilaahay yiraahdo ogaada hablaha oo de golaha wasiirada ku jiraana imaka iyaga noogu cadcad iyagaanu inta badan dhageysanaa waa role model iyagana waxaan rajaynaynaa insha Allah idinkuna inaydun isgarab taagtaan waxaan rabaa inaan in yar ku daro oo mawduuca ka baxsan si guud maalgashigu wuxuu Somaliland ay isu diyaarinaysaa inay u soo jiidato maalgashigaasina iman maayo haddii aan siyaasadaheena guduhu aanay wanaagsanaanin teena dabaduna aanay wanaagsanaanin 100 cisho oo madaxweyne Cabdiraxmaan oo madaxweynaha waxa ogtihiin in siyaasadeena arrimaha dabadu si la taaban kara ay kor ugu kacday maanta waxa ka war haysaan doodaha Mareykanka ka socda ee laga doodayo Somaliland halkee ayay maxaan ku dhahday ma aqoonsanaa status gaar ma siina sidee baynu macaamilkan la lahayn u kordhinaa wax la qabsigii sidee baynu aynu maxaan ku dhahday kor ugu sii qaadnaa doodahaasi Washington bay yaalaan London bay yaalaan Brussels bay yaalaan Addis Ababa bay yaalaan Nairobi bay yaalaan waxaan aaminsanahay haddii ay sidaasi ku sii socoto in ay keenayso wax la taaban karo oo Somaliland haddii Ilaahay yiraahdo wax weyn u tara waxyaabaha doodahaasi kobciyay ee xoojiyay koow waxa ka ah in la inoo arko dawlad mas'uula dunida dawlad marka la aqoonsanayo waxa weeyaan intaan dawladnimo loo aqoonsan waxa ka horeysa in loo aqoonsaday inay yihiin responsible actor dawlad mas'uula oo qaadi karta mas'uuliyadii dadkeedana mas'uuliyadii gobolkana qaadi karta waayo sababtoo ah gobolka ayay wax maxaan ku dhahdaa badani inaga dhaxayaan amni inaga dhaxaya dhaqaale inaga dhaxaya siyaasadii ay inaga dhaxaysa markastoo dabeeta taasi dhacdo waxa iska caadi ah oo mar walba dhacda
إن أي سوماليا كفكرتو سيدي أي سومالي لان وقصوري لهاي أكتر عن مسؤول نقوم كرين ودقال لينو قلن لها وربشد لينو قلن لها ودب لينو قلن لها إماشيها حمسنا انتا وحكا بدن أو ما انتا ودارين هاي ولا سعانو ديمي inta wax ka badan oo aan ahayn deeqay dagaal inta cagaha leeyno galiyada dunida la yiraahdo nimanka waa kuwaas oo haddana dagaal ayay galeen horay u dhacday maantana isku day kala ayay ahayd waxaan hadalkayga ku soo koobayaa oo run ahaantii aan oranaya xamse siyaasadda muqdisho wuxuu ka yahay dabadhoon kama taqaanaan dabadhoonka waxa la yiraahdaa inanka yare geel jiraha wuxuu qaadaa dhiilka iyo waxyaabaha yaryar waxaas uu qaadaa waxba lama weydiiyo hadduu xagga u jeestana waa la dhangadeeyaa oo waa la dhirbaaxiyo dhangad buu ku socdaa marka siyaasadda muqdishona dabadhoon buu ka yahay laas caanoodna waxba kuma soo kordhin karo qof amaba nin amaba siyaasi wuxuu doonaba ha noqdee oo isaga ruuxdii siyaasadda ku jirtay xawlal qarqareenka ay marayso cid kale waxba kuma tarayo muqdisho siyaasiyan buu xawlal qarqareenka siyaasaddiisa maraysa dawladnimadii uu hogaaminayay baa halkay maraysa loo yahay muqdisho airportkeedii maalin walba la duqeynaya marka doolaalada ilaa laascaanood baan wax ka taraya qofkii aqli leh oo kastaaba uu garanaya concept-ka la yiraahdo daydream hadda doonaysa xamse uu eeg daydream qof maalin riyooday soo meedaan maqal hadda doonayso isaga uu eeg Somaliland waxba yeeli maayo waxaanu waxba u yeelahaynin Somaliland waxa ay ku fadhidaa rukuno waaweyn bay ku fadhidaa dawladnimo aynu dhisnay ku fadhidaa dadkeedii bay ku fadhidaa qof maalin meel yimi oo baqiya sacab loo tumay wax aliyaalo wuxuu yeeli karaa ma jirto dooda dunida ka socota baa Red Sea iyo issues-ka waaweyn ee dunida ka jira Somaliland sidee uga qayb qaadan kartaa marka dabadhoon sidoo wax yeeli karaa waa mahadsantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh